markale kulanti wanaagsan warkii oo dhameystiran rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ayaa soo dhaweysay ku biiritaanka iyo saxiixa xubinnimada suuqa bariga iyo bartamaha Afrika ee Comesa ayada uu goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliya wariyaheena Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa warkan faafahinaya gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Galambi oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa u mahadceliyay madaxda qaranka sida ay isugu howleen in Soomaaliya ay markale ka mid noqoto suuqa ganacsiga bariga iyo koonfurta Afrika ee Comesa. Anagoo ku hadlayna ganacsatada Soomaaliyeed rabitaankeeda iyo muxuu ahaayay soo dhaweynteeda waxaan aad ugu faraxsanahay oo soo dhaweynaynaa heshiiskaas Comesa annagoo isle wax soo saarka wadankeena ka soo baxa iyo waxyaabaha aanu ka soo dhoofsano muxuu ahaayay dadka aanu la ologanahay labadaba wax badan bay ku soo siyaadinaysaa oo ka taraysaa ahmiyada inta laga ayuu leeyahay suuqa Comesa mar haddii Soomaaliya ay la soo laabatay xubinnimada suuqaasi waa kan gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga oo ka hadlay faa'iidada Soomaaliya ay ugu jirto inay ka mid noqoto suuqaasi ugu jira oo faa'iidooyinka annaga hadda aan uga dhex jirno ganacsi ahaan waxa weeye miraha wadankeena ka soo baxa markii meelahaas la geynayo in canshuurta qaarna canshuur dhaaf yahay in canshuurta in badan laga dhimayo marka inaanu tartami karno oo waxa aan soo saarno aan suuqyada ku tartami karno faa'iidooyinka hadda aan uga dhex jeedno intaas ka mid ah iyo in kasta badan oo kale xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo golaha shacabka ka tirsan ayaa sheegay in loo baahan yahay in aan la dayacin fursadan isla markaana laga faa'iideysto suuqan ganacsiga ee Comesa fursadaas siyaabo ay ku beerdaroobi karto waxa kamid ah inaan ganacsatada Soomaaliyeed la barin yani fursadaha ka jira meeshaas oo lagu wacyi gelin oo loo sheegin dadku way maqlaan suuqa Comesa ka mid noqonay wax kale inta dheeri ah in aynan inay xog inta ka dheeri yeesho u baahan tahay ganacsatada Soomaaliyeed oo la dhaho waxaad xaq u leedahay ama aad xor u tihiin ABCD inahaas waxa la idin ka rabaa inaadan ku xadgudbin koob laba saddex oo aynan dib u dhicin wixii in aan ku weynay xubinnimadeena iyo kale dabcan amni darada guud ee dalka ka jirta iyo dawlad la'aantii inahaas aan ku weynay laakiin waxa jira waxyaabo kale oo fara badan oo hadii waxa jira standard ama quality-ga la rabo waxyaabaha la geynayo suuqaas oo kale in aan mid garay karno oo aan ka hoos dhicin si aan fursadahaas loogu cayaarin marka waxa la rabaa wasaaradda ganacsiga ee dawladda Soomaaliya oo runtii maalmihii la soo dhaafana dadaal fara badan waday in ay ganacsatada u sameeyso workshop ama ay ku wacyi geliso si fiican loo soo istaadi kareeyo dawladda Soomaaliya ganacsatadeeda maxay xaq u leeyihiin inay geeyaan suuqaas maxayaan xaq u lahayn in dadka la baro marka kadib waxay ogaanayaan ganacsatada access ka soo helaan wax fara badan fursado fara badan ku jira xukuumadda Soomaaliya ayuu xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ku amaanay sida ay ugu dadaashay in suuq loo helo wax soo saarka dalka asagoo sheegay in Soomaaliya maadaama ay ka mid ahayd aasaasiyaasha ururkan ay heli karaan ganacsatada Soomaaliyeed mudnaan gaar ah waxaan xuquuqaal u ahaa dhowrkii bilood la soo dhaaftay shirar caalami oo loo abaabulay arrimaha ganacsatada oo mid ka mid ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho waliba oo dawladda Talyaaniga ganacsatadeeda oo safiirkeedu uu hormuud yahay safiirka Talyaaniga dawladda Soomaaliya halkan u fadhiyo hormuud yahay halkan oo ku keenay delegation aad u xoogan oo suuday soconayay oo fursad aad u wanaagsan ahayd runtii anigu waan tagay maalintii furitaankan fursad u helay inaan ka qayb galo sidaas la mid ah shirka Turkiga ee ganacsatada Soomaaliyeed aad u tiro badan halkan laga kaxeeyo Turkiga lagu geeyay sidaas la mid ah shirki Finland ka dhacay maxaa la Brussels oo ganacsatada Soomaaliyeed runtii ganacsatada Soomaaliyeed in sidaas loo tixgeliyo way mudan yihiin sababtan saas u leeyahay waxay tahay dal sidiis wuxuu ku dhismaa canshuurta ganacsatada Soomaaliyeed ay bixiyaan marka hadii aan la tusin ganacsatadii wax faa'iido ama dawladdu inay tixgelinayso iyana hadii canshuurta diibaan ku dhiibamayeen wanaag hadii kale canshuur micno laho ay diibaan bal arki maayo marka ganacsatada in fursadaha loo raadiyo si ay activity-googa ama ganacsigooda u kordho canshuurta dawladda kordhaysa suuqan Comesa ayaa waxa ku jira 22 dawladood waxaana hore loo oran jiray PTA hase yeeshee sanadkii 1994 ayaa loo bedelay suuqa ganacsiga bariga iyo koonfurta Afrika ee Comesa. Cali Cabdiraxmaan Aadan warbaahinta qaranka Muqdisho.